بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم waxaynu ku jiray casharadeenna taxanaha ahaa insha allahu tacaala ee ku saabsanaa qasaa'idka iyo qabuuraha cilaaqada ka dhexaysa maxay tahay maxaa isdaba dhigay qasiido iyo qabuuro waxaa ka dhexeeya xaggee shareecadan islaamka kaga jidhaa xaggee laga soo minguuriyey xaggee ku taal naskee inoo caddeeyey masaladaasiinu marka ku dhex jiray waxaynu bilaabaynaa marka qaybtii shanaad insha allahu tacaalaa qaybtii shanaad ayib cibaarada ma'muurka aynu ku nahay ee layna amray ee ilaahay inoo diray ee rasuulka inoo qeexay ina baray waxay ku urursan tahay ama ka kooban tahay saddex rugni dheh rugniga koowaad wuxuu yahay atadallul maca almaxabba tadallul in ilaahay laysu dulleeyo oo miskiinnimada aynu nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala la hor dhigto oo hortiisa lagu ooyo oo ilaahay laysu dulleeyo laysu miskiiniyo oo daciif baynu nahay oo si kastayna wax isu bidno oo wax isu moodno wax yar hadday ina taabtaan qayladeenna iyo cuucdeenna iyo boohinteenna meel dheer baa laga soo raacaa marka ilaahay in laysu miskiiniyo ay kuu weheliso maxabbo iyo gacalo ilaahay aad jeceshahay ilaahay subxaana wa tacaala in la jeclaado oo cid jacaylkiisa la wadaagtaana ayan jirin masaladaas waa kow waa rugni waxaa u daliila qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim haddii aad tihiin tuxibuuna allaha ilaahay kuwa jecel haddaad tihiin fattabicuunii aniga isoo raaca rasuulka ilaahay haddaan ahay isoo raaca oo manhajkayga raaca ilaahay subxaana wa tacaala saasuu markaa idinku nimcaynayaay yuxbibkum allahu ilahay wuu idin jeclaanayaay markuu idin jeclaadana wayakfir lakum dunuubakum dembigiinnana waa dhaafaya wallaahu gafuurun raxiim ilaahay waa kan dembiyada dhaafa oo naxariista oo naxariistiisu badan tahay dayib sidoo kale qodobka labaad wuxuu noqonayaa rajaa ilaahay subxaana wa tacala in raja laga qabo oo la damaaciyo oo naxariistiisa la sugo oo khayrkiisa loo toogahayo oo rajadiisu ayan kaa baabi'in oo ilaahay aan laga quusan oo naxariista laa taqnadu min raxmati illaah in allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay subxaana wa tacaala in rajo iyo damac uu la jiro oo kuula jiro oo rajadaada halkaa ay jidho ilaahu dembi dhaaf ilaahuw naxariis ilaahuw barwaaqo ilaahuw caafimaad ilaahuw waxsiin ilaahuw raxmad ilaahuw wanaag ilaahuw janno ilaahuw ciqaab la'aan waa kaa rajadaadu ilaahay subxaana wa tacaala ay la jidho qodobka u dambeeyaa waxaa weeye khawf iyo cabsi ciqaabkiisa iyo caradiisa iyo ilaahay subxaana wa tacaala inaad iska ilaalisid oo isdhowdhid oo is-ururisid oo ilaahay ka cabsatid subxaana wa tacaala cibaaradu markaa saddexdaa rugni ayay ku urursan tahay in ilaahay laysu dullayo laysu miskiiniyo gacalo iyo maxabbana lala qabo ma ujeedaa raje ilaahay in laga qabo khoof iyo cabsi ilaahay inay kuula jidho ma ujeedaa waxaa u daliila innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunanaa raqaban wa rahaba qaybtaan dameeto oo rajada iyo khoofka aayadaha u daliilka ah waa kuna aayaddaana ka mid a innahum kaanuu ambiyada ilaahay baa la ammaanaya oo laga warbixinaya oo layna baraya dhaqankoodii iyo siiradoodii iyo taariikhdoodii waxay ahaayeen yusaaricuuna fi lkhayraati kuwa khayrka u degdega khayrka waa loo degdegaa waxa laale wixii khayra lama dibdhiga isla markii baa lagu dhaqaaqaa ma ujeedaa wayadcuunana kuwana barya bay ahaayeen u fiirso kelimadda baryada ahayd meeshay marayso ilaahay baa wayadcuunana ilaahay waa ku ammaananaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ammaan buu uga dhigay uu soo guuriyo ina baray innaga wayadcuunana wayna baryaayeen ama wayna baryi jireen raqaban wa rahaba raqab waa rajadii rahabna waa khoofkii iyo cabsidii iyagoo rajo naga qaba ciqaabka iyaga iyo caradayadana ka baqaaya ayay na baryi jireen weye wa kaanuu lanaa khaashiciin waa qaybtii hore oo tadallulka iyo maxabbada waxay kuwa noo khushuuca oo isu kaaya miskiiniya oo isu dulleeya nebigu calayhi salaatu wasalaam
maalintii uu maka furanayay hadduu beydka soo gelayay oo soo socday nin boqora oo guulaystay oo gool dhaliyey oo cadowgiisii ka guulaystay buu iska dhigay oo surka taago madaxa taagay maya madaxuu raariciyey oo hashiisii qaswo ahayd oo uu saaraa koorihii halka maaragtay ka horraysa oo wejigiisa hoosteeda ah halkaasuu madaxa ku raariciyey ilaa garkiisu uu taabtay koor halkaa ka hoosaysa iyo heeryadaas iyo alaabtaa ka horraysa uu taabtay madaxu hoos u dhigay hoos u raariciyey waxaas waa khushuuc ilaahay subxaana wa tacaala uu khushuucayo saasaa marka ay ahaayeen ambiyada ilaahay saasay isu dullayn jireen saasay isu miskiinin jireen saasay ilaahay subxaana wa tacaala ay u baryi jireen ma ujeedaa marka saasaa qofka waxaa looga baahan yahay walaalka ah oo muslimka ah ilaahay subxaana wa tacaala goortuu baryaayo oo cibaadada ilaahay ku dhex jiro awalan wa qabla kulli shay inuu ismiskiiniyo oo isu dulleeyo inuu rajo qabo oo ilaahay uusan ka quusan inuu cabsida alle qalbigiisa buuxiso oo ilaahay uu ka boqo ilaa belaa ku dhici kadha oo damaanad ma haysto oo masiibaa ku habsan kadha oo ciqaab baa ku dhici kara oo khaatimo xumaa khatara oo ciqaab iyo cadaab baa khatara oo bela ka dambaysaa khatara oo qabri cadaab iyo maaragtay barsakhiibaa halisa oo khaatimadii halisa oo masiiba adduunka inay ku aseebtaa halisa ilaahay subxaana wa tacaala marka inuu ka baqo oo alle ka xishoodo oo isdhowro oo baqrintiisu qalbigiisa degto saasaa loo baahan yahay rajaa muxuu ahayd rajana uu qabo ma ujeedaa sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wayarjuuna raxmata wayakhaafuuna cadaaba ilaahay dadka wanaagsan isagoo ammaanaya soo ma jeedid ilaahay muxuu ahayto bay rajo ka qabaan naxariistiisa cadaabkiisana way ka baqayaan wey dayib facibaadatullaahi bilxubbi faqad dariiqatu suufiya waxay tahay marka ilaahay subxaana wa tacaala in la caabudo oo lagu caabudo xubbi iyo gacalo waa dariiqada suufiyada iyo dadka si u kala dhiman oo wax u dhiman yihiin oo wax siwa ka yihiin oo wax ka qaldan yihiin ilaahay waa jecel yihiin oo waa la qiraaya oo waa soo kaceen oo waa soo jeedeen oo waa soomeen oo waa cibaadaysteen oo waa dhafreen oo waa maaragtay qayladan iyo qasaa'idkan waa gacalo ambiyada loo qabo oo ilaahay loo qabo oo rasuulka loo qabo oo wanaagga loo qabo ma ujeedaa waxaan la qaylinaayo qabrigan la dawaafayo waxaan la maraayo xubbi iyo gacalo weeye ma ujeedaa gacalo ilaahay ay u qabaan wey laakiin aqoon la'aan baa jidhahoo jahli iyo cibaadadiioo qaldan iyo dhabbadiioo aan la marin iyo mushkilad halkaa ka dhacday ayaa haysata ma ujeedaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa maxabbadiisu waa masale sharciya laakiin dariiqeedii waa inay madhaa marka maxabbada iyo rajada iyo khoofka iyo muxuu ahaytoy khushuuca iyo tadallulka iyo kulli waa inay wada socdaan intoo dhan haddii mid keliya la qabsado maxabbo keliya la qabsado oo inta kale laga takhalluso oo layska daayo oo meel laga maro qalad baa dhacaaya ilaahay in la caabudo iyadoo rajo keliya ay qabtay waa dariiqa murji'ada rajaa faqad aniga tawxiidka waa qiray ilaahay iyo rasuulkiisana waa qiray saasaa la odhanaya ilaahay waa qiray rasuulkiisana waa qiray ma ujeedaa maadaama aan qiray jaadkayga aan cuno halkayga aan fadhiyo masaajidka dhinaciisa laygu addamo waxaan doono aan dhaco laaluushkaan rabo aan qaato sidii doono aan yeelo waxadan aan tuurto hawlahayga adduunaan iska wato murji'a mar haddaan ilaahay qiray rasuulkiisana qiray qofku hadduu saaxiibu tawxiid yahay oo ilaahay rasuulkiisa qiray maca asalaama ahlu janna weeye man qaala laa ilaaha illa allaahu dakhala aljanna warkaasna murji'a la yidhaahdaayo xubbigii ilaahay ma leh oo khoofkii ma leh oo tadallulkii ma leh oo waracnimadii ma leh oo xalaal miirad ma leh murji'a raja ku nool weeye rajada adoo qaba baa la rabaa inaa is ururisid oo alle ka xishootid oo khoof uu kugu jiro oo khaatimo xumo ka baqdid oo is ururisid oo is ilaalisid oo muxuu ahaytay aad wax ka taxafudid oo wax ka leexatid oo wax ka baqdid oo saa yeeshid sidoo kale ilaahay in la caabudo oo lagu caabudo khawf faqad cabsi bes rajo ma jidho gacalo ma jidho xubbi ma jiro tadallul ma jiro khushuuc ma jiro khoof iyo cabsi keliya buuxisay markaasuu xagga maray
oo 100 qof isku qarxiyey oo xagga gubay oo kan dilay oo ummadii kharibay oo hooyooyinkii laayay oo gurigiis ka soo qoraacday oo miskiin ah oo shaqadiisa u socda xabad ku dhiftay oo nin meel iska fadhiyo masaajid ku jira dilay oo nin sujuud ku jira dilay oo waxba uusan dhaafin oo muxuu ahayd ambiyadii dadkii awliyada ilaahay ahaa iyo saxaabadii xatabaraha masaajidka ku laayay dadkaas qoofkaas ku nool oo cabsida belada ah oo noocaas qabana waa khawaarij oo mawaadiicdii kale oo la rabay cibaadada in la xiriido oo rajada ahaa oo xubbiga ahaa oo is-ururinta ahaa oo tadallulka ahaa oo khushuuca baa ka maqan marka waa inay israacdaa xubbiga iyo tadallulka iyo rajada iyo khoofka inta waa inay israacaan oo wada socdaan weey soo ma jeedid ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kan la wadcuuhu khawfan wa damaaca ina raxmatallaahi qariibun min almuxsiniin alla caabuda idinka oo ka baqaaya alla ka xishoonaya ma ujeedaa خوفا ودمعا إذنكو كبقايا أديك هذا واديك كان وقتك هذا أنا هذا لأنه واديك تشوجه سو معها ما دام أجوكت المركز حاتم هذا محين نغني سوار لقى ما هيو محا بريء بريد ما قدم يور لقى ما هيو محا إيمان دونه محا يعدونه ور لقى ما هيو حالة هذا برس قصيكو ضمين دو تور لقى ما هيو حالة هذا آخره قورتي المحشر كاللي يسوي محي قدم يسور لقى ما هيو مركز خوف وإنه كوجرا وإسلاليسا ضمع يرجنا وإنه كوجرا آدم قوسا ونحريص إلهي كقوسا إن رحمة الله قريب من المحسنين سو مجدد وحين سو قاري مركز تعريف العبادة عبادة وحلي يراهد ولا لياله محيتها عبادة وحيتها واسم أي كوكولانتو لما وحي إلهي جعليه ورالكيه وحي إلهي جعليه ورالكيه وقال لي أقوليه ومحبط اللي سوقشا سيدا وقوله وعمل مد بادنا مد ظاهرة سيدا صلاة دوكله سيدا صوم كوكله سيدا زكاة دوكله سيدا ورك رنتاه كوكله سيدا أمانة دوكله سيدا بر الوالدين كوكله سيدا صلة الأرحام كقرابنا اللي حريريو كله سيدا وفاء بالعهد بلك اللي وفيو كلهته سيدا معروف إن الإسفراء سيدا نهج إن الإسكريبة سيدا الجهاد في سبيل الله كفارة الوجه هذا نظام كيسور المرايو والمنافقين الوجه هذا إحسانك درسك الله إحسان سمايو يتينك الله إحسان سمايو دعاء إلهي سبحانه وتعالى بريو ذكرك اللي الله حسه قراءة القرآن ذبحك إلهي لو جورعيو نيفك نذرك الله سمينا إلهي درتي استعانة استغاثة وحاس أردن iyo wax la mid oo fara badan baa waxay soo galayaan waxa la yiraahdo cibaarada mawjeeda cibaarada marka waa noocaas waa shay nidaamsan oo magac leh oo xadadan oo waqtiyeysan oo qaabaysan oo saa rukuuc oo saa sujuud oo saa gowrac oo waqtiga yeel oo waqtiga halka mar mawjeeda marka saasa waxa looga baahan yahay qofku in cibaaradiisu ay tahay cibaaro daliilaysan oo nabigu sameeyay nabigu wartu xajka waatu ina laha khudu anni manasikakum sidoo kale salaada waatu ina yiri muxuu ahaytoy goortu nabigu ina baraayay salaada muxuu ahaytoy salaada aniga iga qaata weey nabigu markuu xidhay oo halka weey salaada iga qaata oo iga fiirsada salawaatullaahi wasalaamu alayhi waatu iyadana ina laha weey oo ina baraayay صلوا كما رأيتموني أصلي سيدا أنو تكنايو وهذه يأركتن أنو تكنايو تكذا سكلا ممنوع وي سو مجدد سكلا يقاب كلا ممنوع وي لما أقوله هل كان مركب حضرك يسور ليالو ذاتك مسلم كهو ولا لا هيه ومضى يرى ذاتك يجا يو ومضى يرى الصومالي الإسلام كواجع الله عدو بدن بيليهين عدو بيكحيرينهين أفرتكون عدو كجوجا وضد لو تشري وضد لقيب صدي وضد لدليي وضد لوعياري وضد ماركتي iska furudo Arabiya oo reer baadiye isaga sameysano dawladnimadoodii baa loo soo dhacay muxuu ahayd dawladnimadoodii baa la duleeyay waa la isku diray mushkulad waa dad furud waa dad tashan kari waayay waa dad talaxuma ku dhacday waa dad musiibadaas ku dhacday waa dad dawladnaan muddo dheer ku noolaayo iska maaragtay moral jabay dadkan waxa la rabaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaaradiisa iyo sharcigiisa in loo hoggaansamo cibaaradiisa qaybta cibaaradan ka hadlayna in loo hoggaansamo siday tahay loo ilaaliyo way insha Allah ta'ala عبارة إلهي بعد جاي إلهي بنا لوجد ضمينا النبي قال إنه فهيو إن بري صلوات الله والسلام عليه وحين كل جندونا إن شاء الله تعالى شروط عبارة وإنه موضوع الضمي كده جدونا 10 كانوا إن شاء الله تعالى و10 كيشنات 10 هذه امتحانها ها يكسب سنة قبورها يقصير ده مع عبادة مسوى معامله هذه عبارة هاي محام منهج النبي لو وافجين واي هذه معاملة هاينا حقيقة فقهية يوم معاملة بني آدم كده حيصة حقيقة كقطع الله إن شاء الله تعالى
inta ayaynu casharkaana kusoo dhawaynaynaa intaynu ka gaarayno casharkeena lixaad وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.